waxaa maanta degmada Walaweyn tababar socon doona muddo 5 maalmood ah loogu furay habeenka kala socday degmooyinka Walaweyn Afgooye iyo tulooyinka hoos yimaada halku dhiga tababarkan ayaa ah dumarku waa xoog dhibkana waa ay xalin karaan tababarkan ayaa waxaa soo qaban qaabiyay dowlad goboleedka Koonfur Galbeed Soomaaliya iyo xafiiska arrimaha haweenka ee gobolka Shabeellaha Hoose madasha furitaanka tababarkan ayaa waxaa goobjoog ka ahaa maamulka degmada Walaweyn madax ka socotay Koonfur Galbeed iyo maamulka gobolka Shabeellaha Hoose kuwaas oo kelmado kooban ka jeediyay madasha ayagoona ka qaybgalayaasha ku booriyay in wixii ay bartaan ay gaarsiiyaan bulshada markay dib ugu laabtaan deegaanadii ay ka yimaadeen waxaan aad ugu faraxsanahay maanta inay hal meel wada joogaan urur haween oo ka socda degmada Afgooye iyo Walaweyn waa arin farxad leh oo ilaahay noo suurta galiyay in maalinta xafladan ay ka dhacdo degmada Walaweyn waxaan aad ayagan u mahad celinaynaa dadkii macnaha ka soo shaqeeyay abaabulkan isu imaatinkan ayagan aad ay u mahadsan yihiin ha ahaadaan heer gobol iyo martida kale oo nooga timid dowlad goboleedka Koonfur Galbeed barnaamijkan wuxuu ku saabsan yahay tababar oo haweenka ah kulleeyta wixii markaas oo la idin baro waxaa la rabaa in idinkan dadka u sii gudbiso insha Allah ilaahay waxaan ka rajaynaynaa maadaama barnaamijku maaragtay waqtigiisa uu nagu kooban yahay in ilaahay gabdhaha Soomaaliyeed noo badbaadiyo dowladnimadana waxa asal iyo aasaas u ah hooyooyinka Soomaaliyeed dahabkiina ayaa dowladnimada Soomaaliyeed lagu keenay marka laakiin hal shay ka qayb qaata igana balan qaada in dowladnimada Soomaaliyeed ina dhistaan oo maaragtay hagaajisaan oo dushiina ku qaadaan ina naga balan qaadaan anaga ay balama tahay waxaan ku faraxsanahay Walaweyn inay maanta noo tahay fadhi asalba fadhi inoo ahaan jirtay haddana maanta fadhigan aad gabdhaha waliba qaasatan ay ka dhiganayaan fadhi oo fadhi aad u weyn oo maxaa la yiraahdaa ii sheeg uu yahay mid aad muhiim u ah in oo Walaweyn iyo Afgooye is martigeliyaan waxaan idinka rabaa inaad isku xirnaataan waqti walba aad ka shaqeysaan horumarka haweenka ee labada degmo iyo intii kale oo gobolka Shabeellaha Hoose dhamaantiina waxaan salaan idinka sidaa wasiirada haweenka ee Koonfur Galbeed Marwa Isa Shariif waxay ahayd inay barnaamijkan imaato ee inoo furto oo ay maxaa la yiraahdaa markaan support gareyn in garab weyn ugu siisay waan ku casuunay laakiin waxay tiri idinka iga mas'uul ah aniga baydhabo wax kale ka sii weyn aan ka sii diyaarinooyaa kii doorashooyinka iyo in aan wax ku raadsano oo maxaa la yiraahdaa boqolkiiba 50 in aan raadina rabnaa sanadkan marka iyadana si fiican ay idin soo salaamayso waxay tiri gabdhaha salaah laga gaarsiyo waan jeclahay waan idin iimaan doonaa hay dhahday fikira gadaal u laabta kaliya in laga fikiro maahan halaaye qabiil hebel iyo qof hebel ha isku mashquulina waxaad ku mashquushaan wax naga maqan oo xageeyo aad u dheer inaan soo dhacsano anaga marka aad u maasantihiin kulay ugu dambeyn waxaa mikrofoonka lagu soo dhaweeyay xildhibaanad Faadumo Cabdiraxmaan Guulwade oo ka mid ah xildhibaanada baarlamaanka Koonfur Galbeed taasi oo si rasmi ah tababarku u furtay haddii tiin gabdhii Walaweyn hadda maanta koonsaral dhisa hadii la dhaho gabdhaha inay ka soo muuqdaan inay hataa gudoomiye isku soo sharxi karaan gabdha aqoon loo dhisano gudoomiye noqon kara buuxo marka waxaan dhihi lahaay gabdhaha yar oo guriga joogana dhinac waxbarashada looga didaalo dhan kasta gabadha waa la ogaad hatta maanta dibadaha Soomaaliya dadkii rag u maqnaa iyo dadkii gabadh u maqnaa isku mid ma aha maasantiin seminaarkan waa noo furan yahay waana isla joognaa haddii gabdho jiro barbaleen gaar haysto ay rabin hataa meelaha inay ku hadlaan si gooni way ila kulmi karaan way ii sheegi karaan maadaama aan ka mid ahay baarlamaanka haweenka iyo xuquuqul insaanka aan ka socdo dad waxa jiro oo xogo iska xishoonay bulshada amal marka diyaara idin nahay telefoon waa idin sii karnaa si gooni waa idin kulmi karnaa soo dhawaada marka insha Allah seminaarkan oo furiya marka shaqada ayaan wadanayna aad u mahadsantiin Mahad Axmed Cali telefishinka RTN degmada Walaweyn gobolka Shabeellaha Hoose